soo dhawaado saaxiibadana YouTube. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqoto channelkeena noo saar subscribe. filimkeenana waxa uu ku bilaabanayaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed. waa wiil ka shaqeeya qashin qubka si uu uga urursado caagadaha lagu soo daro qashinka uuna ugu maareeyo noloshiisa. habeenada ka mid ah waxa uu u yimid saaxiibkii oo lagu magacaabo Gonzales, waxaana uu ku wargeliyay saaxiibkii in ay aad u xanuunayso keli uuna soo qabtay shaqo aad u fara badan. waxaana uu saaxiibkii u sheegay in uu geeyo dhakhtarka maadaama ay aad u xanuunayso kelida. Maxamed isla markiiba dhulka ayuu ku dhacaa halka saaxiibkiisna uu ula cararo dhakhtar. isla markiiba waxa uu keenaa dhakhtarka waxaana uu u gooyaa kaadh saaxiibkii si uu ula kulmo dhakhtarka, balse kooxda gargaarka degdega ah ayaa isla markiiba caawimaad aanan u fidinayn Maxamed. balse ugu dambeyn dhakhtarkii waxa uu u sheegay Maxamed in kelidiisu aysan shaqaynayn uuna u baahan yahay qof kelida u bixiya. qiimaha kelidana waxa uu u sheegay haddii la helo inuusan goyn karin lacagteeda, balse saaxiibkii tahsan ayaa gaarigiisa ku soo kaxeeyey. waxaanay daarteen intii ay dhibada ay ku jireen heeso uu jeclaa Maxamed. kelidii xanuunaysay way soo yar fiicnaatay halka saaxiibkii tahsanna uu u daaray heesihii uu jeclaa Maxamed. waxaana goobta ku wada faraxsan tahsaan, saaxiibkii iyo Maxamed. waxaanay soo dhex marayaan xaafadahooda, waxaanay arkayaan wiilal dhalinyaro ah oo darbi jiif ah. isla markiiba Maxamed waxa uu dib ugu soo laabtaa gurigiisa, waxaana uu akhriyaa fariin loogu reebay gurigiisa. Maxamed subaxaas waxa uu ka soo baxaa gurigiisa isaga oo aad u faraxsan kelidii xanuunaysayna ay u bogsato. waxaana uu arkaa ciyaal yaryar oo darbi jiif ah, waxa uu wada sheegay in ay noloshatan aysan ahayn mid ayaga u fiican. waxaana uu ku wargeliyey in ay wada shaqaystaan oo ay xamaashaan. waxa uu u yimi saaxiibkii waxaana uu u sheegay in uu caawimaad u fidinayo dhalinyarada yaryarka ah ee aan shaqaysan si uu ugu sameeyo shaqo ay ku dabaraan naftooda. balse saaxiibkii wuu ka soo horjeensaday, waxaana uu ku yimanayaa shaqadeydii qashin qubka si aan u soo urursado caagado badan. saaxiibkiis maalintaas aad ayuu u faraxsanaa sababtoo ah waxa uu soo urursaday caagado aad u fara badan. waxa uu joogaa halka ay caagadaha ay ku soo wada ururin jireen, balse labadan Maxamed iyo saaxiibkii aad ayay u faraxsan yihiin maadaama oo Maxamed uusan maalmahan uusan aadin shaqadiisii, balse waxa uu qorsheynayaa Maxamed inuu sidatan wax uu ka bedelo. waxa uu arkayaa wiil yar oo asagana lagu magacaabo Cali. wiilkan yar waa mid darbi jiif ah oo aan haysan wax waalid ah, waxaana uu isku dayaa inuu wareysto Cali. waxaana uu weydiiyey goormo ayaa kugu dambeysay waalidkaagii, balse wax jawaab ah ma uunan siin. Maxamedna waa uu dareemay in waalidkii ay mar hore ay ugu dambeysay. si kadis ah Maxamed iyo saaxiibkii ayaa aad iskugu dhacay, waxaana uu saaxiibkii u ka soo horjeensaday in uu caawimaad u siiyo dhalinyarada yaryar, inuu caawiyo oo uu ku dhiirigeliyo shaqada maadaama uu asaga shaqada uu ka shaqeeyo ayna ku yihiin xanibaad. waxaa la tusayaa Maxamed oo jooga maktabadaasna waxa uu ku arkayaa naag, balse naagta isla markiiba indhaha ayay ku gubaysaa. Maxamedna sidoo kale aad ayuu u fiirinayaa. intaas ka bacdi waxaa la tusayaa Maxamed iyo Cali oo wada cunaya hamburger. sidoo kale waxaa la jooga saaxiibkii, waxaana uu tusayaa Cali yare keeg, balse Cali yare waxa uu ku wargelinayaa Maxamed in ay soo dhowdahay maalinta dhalashadiisa. Maxamedna waxa uu soo gelayaa makhaayad si uu u arko Maxamed keega uu jecel yahay, balse ninkii keega sameynayay ayuu ku dhahay Maxamed waa inaad keega kan aad ii samaysaa. qiimahana waa ay ku heshiiyeen, balse Cali yare waxba kama oga. isla markiiba Cali ayaa u yimi Maxamed, waxaana
uu u sheegay saaxiibkii inuusan wax dambe uusan samayn uuna ka soo horjeesan dhallinyarada uu caawinayo. balse Mahmed iyo saaxiibkii iyo Cali Yare waxa ay aad ugu faraxsan yihiin Cali Yare dhalashada loo dhigay, halka Cali Yarena uu niyadda u dhisay Mahmed maadaama uusan haysan wax waalid ah uuna yahay darbijiif aad u yar uuna u qalmin inuu ku noolaado nolosha darbijiifka ah. Mahmed waxa uu waqti u la qaataa Cali Yare si uusan u dareensin kelinimo, waxaana uu keenaa xeebta si uu ugu ciyaarsiiyo. waxaa la tusayaa Mahmed iyo saaxiibkii Tahseen oo iskugu dambeysay waqti hore, balse saaxiibkii Tahseen waa saaxiib uu talada uga qaato, waxaana uu siiyey talooyin badan. talooyinkaas uu siiyey Mahmed aad ayuu u soo dhoweeyey, waxaana uu ku wargeliyey in uu noloshiisa inta uu nool yahay uu ku noolaado nolol farxad leh, uuna shaqaysto, uuna dib ugu laaban noloshii hore ee uu soo maray. saaxiibkii Tahseen ayaa sidoo kale u sheegay in ay noloshiisu isbedeli doonto. Mahmed isla subaxiiba waxa uu arkaa Cali Yare oo jooga guri, waxaana uu ka arkaa daaqadda, waxaana uu u geliyaa koofiyad, balse waxa uu asagana u dhiibay gaari yar oo uu ku guro qashinka si ay u soo wada urursadaan caagadaha lagu soo daro qashinka, ayna halkaas uga helaan dakhli lacageed oo ay ku noolaadaan. balse Mahmed iyo Cali aad ayay u faraxsan yihiin. sidoo kale waxaa la tusayaa Mahmed oo jooga gurigiisa, waxaana uu gaari u keenay Cali Yare oo hurda. isla markiiba Cali markii uu hurdada ka soo kacay waxa uu arkay baabuurkii uu u keenay Mahmed. Mahmedna waxa uu habeenkaas ka soo baxaa gurigiisa, waxaana uu arkaa dhalinyaro darbijiif ah oo fadhida bannaanka. Mahmed sidoo kale waxa uu isku dayaa inuu qorshaysto noloshiisa, balse Saa'id waxa uu xanuuntay kelidiisa. hadda lama joogo saaxiibkiisii geeyey dhakhtarka. Mahmed ayaa isla markiiba dib ugu soo laabtay bannaanka, waxaana uu arkay dhalinyaro yaryar iyo Cali oo isla jooga. Calina isla markiiba dhulka ayuu ku dhacay. Mahmedna waxa uu isku dayay inuu caawiyo, balse wax dhaqdhaqaaq ah wuu ka waayey Cali, waxaana uu u sheegayaa Cali in uu iskaga tago goobta, balse isla markiiba waxa uu goobta uu ka waayayaa Cali, waxaana uu arkayaa Cali Yare oo ay soo gaareen nabaro yaryar, waxaana uu u sheegay in nimankan ay ka wada shaqeeyaan goobtan qashin-qubka. Mahmed ayaa isku dayay inuu dhalinyarada kale ee ay goobta ay ka wada shaqayn jireen ee qashin-qubka ay iswada dagaalaan, balse Mahmed ayaa dilay dhammaantoodba. sidoo kale waxaa la tusayaa naagtii ay hore isku arkeen Mahmed markii uu ku jiray maktabadda, balse Mahmed markan waxa uu jiifaa dhakhtarka. naagtii uu arkayena waxa ay ahayd doktorad, balse saaxiibkii ayaa u yimi asaga oo gacanta uu dhiig ka socdo, waxaana uu u fidiyey caawimaad. isla habeenkaaba dhakhtarka waa laga soo saaray Mahmed, waxaana uu saaxiibkii u sheegay in uu u waco saaxiibkii Tahseen. Tahseen ayuu la wadaagay xaaladiisa, balse waxaa isku dhacay Tahseen iyo Mahmed maadaama uu maqli waayey Mahmed taladii uu siiyey saaxiibkii Tahseen.